ciidamada Ukraine ayaa waxa uu Mareykanka ka caawiyay arrimaha xogta iyo xuraansiga ee dhanka howlgallada xeeladaysan ee artilleriga iyo weerarada gantaalaha. Duulimaadyo tirabeel ah oo xuraansi military ah ayaa Mareykanka waxa uu ka fuliyay meel u dhow xuduudaha Ukraine si uu u helo xogo dheeraad ah oo arrimaha ciidanka ku saabsan. Dabadeed loola wadaago ciidamada Ukraine oo waayada dambe aad ugu liitay dhanka xogtan howlgalka sirdoonka ah ayaa waxa ay ka caawinaysaa Ukraine xaaladaha dagaal ay ku jirto. kaliya ma xogtani waxa laga raadinayo xuduudaha Ukraine sidoo kale sidaas si la mid ah xuduudaha dalka Romania. Si joogto ah ay halkaasi uga hayaan kormeer iyo dabagal xaaladaha meeshaasi ka jira. Arrintan ayaa waxa ay xiriir leedahay dagaalada aan la mahdin ee halkaasi ka socda iyadoo la isticmaalayo hubka gantaalaha xeeladaysan. Howlgalkaasi la mid ah ayaa Russia waxa ay ka sameysay xuduudaha Ukraine. Hoggaanka ciidamada Ukraine waxa uu isku dayayaa inuu ka soo kabsado xog yaraantii haysatay ee dhanka hawada iyaga oo hadda xogta ka helay xuraansiga iyo howlgalka xeeladaysan ee Mareykanka. Howlahan uu ka wado Mareykanka xuduudaha Ukraine iyo Russia ayaa Russia ilgaar ah ku eegaysa sida uu xaqiijiyay afhayeenka wasaaradda difaaca Russia Igor Konashenkov. Inkasta oo aan war rasmi ah ka soo bixin dhanka Russia, hase ahaatee arrintani haddii ay sii socoto ayaa xeeldheerayaasha militariga waxa ay sheegeen inay ku adkaanayso Russia dagaalka Ukraine uu ku qaaday inuu sii wado. Hase yeeshee marka laga eego xogta rasmiga ah ee fulinta howlgal gaar ah oo markaasi laga fulinayo xuduudaha Ukraine ayaa waxa uu ahaa waxyaabo hore loo sii qorsheeyay. Dagaaladan ka socda Ukraine ayaa labada dhinacba waxa soo gaaray khasaaro tirabeel ah oo naf iyo maalba ah. Ukraine si weyn ayuu u saameeyay xanuunka dagaalka. Russia xanuunka dagaalka iyadana way la qabtaa waayo dagaalka inuu wax burburiyo maahane waxba ma dhiso.